waa qoriga ugu isticmaalka badan leh dunida, waxaana lagu isticmaalaa dhammaan daafaha dunida. waxaa qorigan lagu astaansadaa AK-47 oo loo raaciyo magaca ninkii hindisay oo ahaa khabiir ruusha oo la odhan jiray Dr. Mikhail Kalashnikov. wuxuu qorigan hindisay sannadihii u dhaxeeyey 1946 ilaa 1948, waxaana gaashaanbuurtii Warso ee uu horkacayay waddanka maanta loo yaqaan Ruushku ciidamadeeda si rasmiya ugu qaybisay 1949. taniyo waaga waxaa lagu qiyaasaa xaddiga laga sameeyey qorigan tiro dhan 75 milyan oo xabbo oo nooca AK-47 ah, waxaana la tilmaamaa in sababaha loo doorbidaa isugu jirto isagoo ah mid fudud, cilladiisuna yar tahay, cimilo kastana la jaan qaadi kara, sidoo kalena ay sahlan tahay isticmaalkiisu. samaynta qorigan waxay martaa marxalado kala duwan. ta ugu horreysa iyadoo marka hore qaybaha uu ka kooban yahay gaargaar loo kala sameeyo, kadibna waxaa la keenaa goobta la iskugu xidhxidho. intaa kadib wuxuu qorigu maraa maraaxilo kala duwan sida tijaabooyinkaas iyadoo lagu tijaabinayo duruufo iyo cimilo kala duwan si loo hubiyo adeegiisa iyo hufnaantiisaba. waxaa lagu tijaabinayaa sida uu la jaan qaadi karo cimilada engegan sida boodhka iyo ciidda. sidoo kale waxaa la tijaabinayaa sida uu la jaan qaadi karo xilliyada roobabka. siduu qorigani saamaynta ugu yeeshay dunida waxaad ka dheehan kartaa. waxa uu ku xardhan yahay calamo tiro badan oo dunida laga kala leeyahay, gaar ahaana calamada ciidamada ay leeyihiin waddamo tiro badan oo dunida ka jira, sida astaanta calanka ee ciidanka Mozambique, ururka Xisbullah ee ka howlgala ama ka dagaalama waddanka Lubnaan, iyo kuwa ka mid ah qaybaha ciidamada dalka Iiraan. wuxuu qorigani dilaa sannad kasta 100,000 oo qof oo ku nool daafaha dunida. arrintaas oo ah mid murugo leh maruu ka dareen celinayay Mr. Kalashnikov oo ahaa ninkii hindisay ama sameeyey qorigan. arrinkaas isagaa wax laga weydiiyeyna waxa uu yidhi, anigu waxaan u sameeyey in la isku difaaco ee umaan samayn in la isku weeraro, mana aha in cid kasta gacantiisa uu galo hubkani sida ururada argagixisada ah. guntii iyo gabagabadii barnaamijka wuxuu Mr. Kalashnikov geeriyooday sannadii 2013 bishii 12aad 23 waxaanu ku geeriyooday dalka Ruushka isagoo cimrigiisu ahaa waaga 94 jir. wuxuu ka tegay xusuus sii socon doonta oo aan la garan doonin gooray dhammaan doonto. xusuustaas oo dhammaanteed la xidhiidha dhiig daata. inkasta oo uu intuu noolaa waddankiisu guddoonsiiyey Mr. Kalashnikov bilad sharafeed kala duwan, taas uu guddoonsiiyey tii ugu dambaysay madaxweynaha dalka Ruushka. biladaas oo ahayd xidigta dahabiga ah ee ka dhigan halyeyga